halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis 11 bisha abriil sanadka aan iraahday waa khamiis 18 bisha abriil sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maxkamad ku taala new york oo maanta dib u ambaqaadaysa dhagaysiga kiisaska dacwadeed ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. laakiin haddii arrintu ay faldembiyeed noqoto lagu helo inuu dembiile yahay dembi galay oo xukun uu ka dhasho ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo. waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aqoon-yahanka soomaaliyeed ee wax ku bartay maraykanka oo soo dhoweeyey tallaabadii uu madaxweyne joe biden sheegay inuu deymaha kaga cafinayo dadka loo haysto amaahdii waxbarasho ay qaateen iyo waxa ay uga dhigan tahay, iyo sidoo kale dhakhaatiirta magaalada boosaaso oo sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu soo badanayo deegaano badan oo ku yaala gobolka bari, iyo weliba ciyaarihii iyo kooxda real madrid oo xalay ka aargudatay kooxda manchester city. balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. golaha sanadka ee maraykanka ayaa arbacadii shalay meesha ka saaray dhammaan eedihii uu aqalka wakiilada xilka uga xayuubiyey wasiirka arrimaha amniga gudaha ee maraykanka alejandro mayorkas. xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa mayorkas ku eedeeyey inuusan ku dhaqmin xeerarka xuduudaha maraykanka iyo inuu been u sheegay koongareeska. aqalka sanadka oo ay qalbiyad haldheeri ah ku maamulaan dimuqraadiga ayaa tuuray labadii qodob ee ay ku soo eedeeyeen aqalka wakiilada, waxaana ay xeerkooda ku meelmariyeen codad dhan 51 jamhuuriga ayaa ku doodaya in madaxweyne biden uu aad ugu dabacsan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xadka kadib markii ay 2 milyan oo ruux kor u dhaafeen dadka ka soo gelaya xadka koonfureed ee maraykanka labadii sano ee lasoo dhaafay. kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ingiriiska iyo jarmalka ayuu ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu arbacadii shalay ka shanqariyey in israa'il ay iyada qaadan doonto go-aankeeda ku aadan sida ay isu difaacayso. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa xulafada laha israa'il ay ku cadaadinayaan xukuumadda Tel Aviv in ay isxakamayso oo aysan ka jawaabin weerarkii ay dhowaan kala kulantay Iiraan. maraykanka, midowda yurub iyo dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 ayaa dhammaantood ku dhawaaqay qorshayaal ay ku saarayaan cunaqabatayn hor leh. arrintaas ayaana loo arkaa mid reer galbeedka ay ku direen fariin ah in israa'il aysan ka aargudanin Iiraan. xafiiska netanyahu ayaa sheegay inuu uga mahadceliyey wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka annalena baerbock iyo dhigeeda dalka ingiriiska david cameron taageerada ay u muujiyeen, balse uu caddeeyey in israa'il ay iyada qaadanayso go'aanada ay isku difaacayso. dhanka kale ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa arbacadii sheegay inuu gantaallo ku weeraray saldhig militari oo ku yaala waqooyiga israa'il. milatariga israa'il ayaana sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 14 askari. xisbullah waxa ay weerarkaasi ku sheegtay mid ay uga aargudaysay duqayn ay diyaaradaha israa'il ku bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururka xisbullah. dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington.
aan ku bilownay maanta oo khamiisa ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada Manhattan ee magaalada New York ay dib u ambaqaado dhageysiga kiisaska dacwadeed ee tirada badnaa oo ku jiro kiiska sumcad dilista ah ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kaasoo ay maxkamadda geysay haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo Jean Carroll. haweeneydan ayaa horey ugu eedeysay Trump inuu faraxumeeyey sanadihii 90-maadkii iyadoo Trump uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey. sanadkii 2019 ayay maxkamadda ka dacweysay iyadoo ku eedeysay inuu sumcad dilay. haddaba arrinkaasi iyo dacwada inta ay ka kooban tahay iyo waxyaabaha madaxweynaha loo haysto ayaan ka wareystay gariiqaan Aamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota, waxaana marka hore weydiiyey waxa dacwadan ay ka kooban tahay. kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada New York kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban 34 qaybood ama counts 34 qodob ka kooban, waana faldambiyeed inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdabamarin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiiyo waktigii doorashada uu ku jiray 2016 marka iyo in maaragtay uu xaaladdiisa dhaqaale uusan ka rusheegi jirin, kasna uu maaragtay si khayaano ah uu ugu samayn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba New York. marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda. waa maxkamad hadda bilow oo hordhaca. hadda waxaa la dooranaya xeer beegtigii, waxaana la filayaa in uu maxkamadintani ay socoto muddo ilaa 6 isbuuca. waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato. wakti badan ayay haddaba qaadatay xuritaanka xeer beegtidu, welina ma dhammaan. waa gartay. marka tan maanta hortaallo kiiska sumcad dilka ah iyadana la dhegeysanayo muxuu yahay, yaana soo gudbiyey? waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha New York District Court of New York oo la yidhahdo Alvin Bragg. wuxuu ka hadlay in su-aalo mar la weydiinayay oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go'aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa, kiiskan ku furan, ay su-aalo ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo Jean Carroll la yidhaahdo, xukun looga xukumay lacag 90 milyan ku dhow oo kale, iyo in maaragtay lagu helay wax isdabamarin iyo musuqmaasuq kale oo iyada lafteeda lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada New York. marka kuwaas in uu soo su-aalo ka weydiin doono ayuu xeerlaaliyuhu sheegay. taas ayaa keentay marka inuu kiisaas dib usoo laba kacleeyo in uu xeerlaaliyuhu weydiin karayo in kale. waxaa xusid mudan oo rabaa dhegeystayaasha inay fahmaan in markii qofka dalka Maraykanka la saaraya maxkamad uu xuquuq dastuuriya u leeyahay in uusan makhraati kicin, oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dembiga qirtay. waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka Maraykanka iyo gobolladuba ay siinayaan. marka taas waxaa keliya lagu jebin karaa qofku isagu inuu go'aansado inuu makhraati furo. laakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su'aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay. hadda dacwado badan ayaa hor yaalla. marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray, sidee isu soo gelayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa? waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco oo yidhahdo anigu waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay, horeyna loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka, sida inuu qofku musuqmaasuqo, inuusan runlow ahayn oo been sheego, inuu wax isdaba mariyo. haddii dembi noocaasa hore lagugu helay, maxkamaddana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan, dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso ku tidhahdo miyaadan ahayn qofkii horey loogu helay dembiga noocaana, miyaadan arrintani dhicin. hadduu qofku dabcan diidan waxaa lasoo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waktigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka waa kiiskan sumcadda ku saabsani wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go'aanso inuu makhraati furo, si dee u makhraati furona uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegtida ay rumaysta ay tahay. marka waxaa la weydiinayaa miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay. marka waxay hoos u dhigaysaa markaa su-aalahaas
inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa. garyaqaan sidaan la soconno madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump wuxuu ku jiraa olole doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan maraykanka. marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday dhaawac intee la-eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad? waxay ku xidhan tahay runtii cadeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin. ilaa hadda waxaan la soconnaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah loogaga guulaystay madaxweynaha. inta badanna dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax. laakiin haddii arrintu ay faldembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiile yahay dembi galay oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray, laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo. horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan waddada Fifth Avenue aan qof xataa ku dilo hal cod kuma dhuminayo. marka tii haddaysan rumoobin waktiga ay noo sheegi doona waan arkaynaa. laakiin hore waxaa xusid mudan aan loogu helin wax dembi faldembiyeed ah, laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah. laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin. madaxweyne maraykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump inuusan weligii xil u tartamin. marka waa xaajo ugub ah. waktiga ayaa noo caddayn doona. kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo qadka telefoonka iigu waramayey. qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka soomaalida ee wax ku bartay dalkan maraykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey qorshihii madaxweynaha maraykanka Joe Biden uu ku dhawaaq. sheekadaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa dhegeystayaal. dhakhaatiirta magaalada boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka bari. qaar ka mid a meelaha laamiga ka baxsan oo ay adag tahay in laga helo adeega caafimaad ayna dadkaasi u badan yihiin. dadka laga helayo xanuunada ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur, kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsaneyn xanuunka oo xilliga uu soo ridanayo ama ay tegayaan goobaha caafimaadka ay horseedi karto in ay timaado in dalka wax looga qaban waayo. Dr. cabdicasiis axmed gurey oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa xaaladan uga waramay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf. aad baa umahadsantiin v o a. kansarku ama unugyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyey kontroolkii xakamayntii jirka uu ku hayay unugyadiisa. jirkeen wuxuu ka kooban yahay balaayiin unugyo ah kuwaasoo shaqooyin kala duwan qabta, kuwaasoo ku jira hubinti ama xakamayn aad u sarreysa. unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontroolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan, koraan, ayna u gudbaan xubnaha u dhodhow ama unugyada u dhodhow. marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxaa la yidhahdaa kansar. magaalada boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanaya aada u badan yihiin. marka maxaa keenaba soron ka dha xanuunkaas? horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan puntland ama boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu usoo badanayaa. waxaa kor u qaadmay alshan diagnosticii ama waxyaabihii shaybaaradii lagu baarayey kansarka, maadaama marka hore aan aada loo ogaanayn, laakiin mar kasta waa uu jiray. waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa. marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado. cayilka oo kale aadka u fara badan baa siyaadinaya. genetiga oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale. dabeecadaha aan wanaagsaneyn oo kaleba iyaguna
ziyaadinaynin kansarku aada usoo bato sida qof dadkii oo cunno process garaysan ama sajal garaysan oo caagidaysan ama qasaacadaysan cunaya, sokortii oo aada loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakado iyaguna aadma u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sanbabada keliya ee keena in kaadhaysta oo kale ku samaysmo, keliyaha uu ku samaysmo, caloosha uu ku samaysmo, khamriga oo kale isna waa aad buu u xoojinaya kansar inuu yimaado, iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeenna oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah. marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screeningka la yirahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hore loo ogaado ee aada u yaryihiin. marka waxyaabahaasoo dhan baan u salaynaynaa inay keeni karto. dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan Titore? annagu intaan aragno bukaanada aragno inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin. kuwa yaryar waa jiraan, yaraan iyo weynaan inta badan ma laha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood iyo koritaanka hadba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay. laakiin dadka waaweyn dadka yaryar iskusi ayuu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay. Titore, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, magaalada Boosaaso ma leedahay meelo u gaara oo dadkan xanuunadooda lagu baaro? inta badan cusbitaalada magaalada iyo kilinikada ayaa lagu baaraa. inta badanna qofku calaamado ayuu la yimaadaa. mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isagoo maraya check-up sanadle oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale in iskaan ama combyuutar la saaro kabacdin in la helo burooyin inay ku jiraan jirku samaysmeen. marka xarun gooni oo ah ma jirto, laakiin si guud ayaa loo baaraa. wixii adeega loo qaban kara ayaa loo qabtaa. wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa. xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka, meelaheebaa ugu badan oo bulshada nabaradaasi ku saameeya? horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyanba iyo soomaaliyaba waxaan jira alashaan in uu badan yahay kansarka naasaha, kansarka brostatka oo xagga ragga ah, iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka. marka saddexa kansar ayaa u badan, laakiin waxaa maalmahan inkasta soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama hunguriga ku dhaca, kaasoo aan u salaynayno waxyaabaha kulkul ee dadka in ay cabaan shaaha oo kale aada loo cabo, kulaylka iyo cunooyinka qaarkood. waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta, iyaguna kuwa beerka ku dhaca oo ay habitaasyada ama cagaarshooyadu ay keenaan, kuwa sanbada ku dhaca iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale. waxaa la yidhaahdaa soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan, dhakhaatiirtuna ay ku yartahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aada ku soo ridanayo. Titore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan islamarkii dhakhaatiir lama xiriiraan. maxaa taa sababaysa oran kara? horta isagu shaki badan inta badan ma laha oo qofku wuxuu ku ogaan karaa. shakiga u weyn waxaa keeni kara inuu qofku ku arko buro ka soo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko. taasna waxaan kula talinayna qof kastoo isku arka wax kasta oo buro ah ama wax kastoo fiixa oo jirkiisa ka soo baxday bannaanka ah inuu dhakhtar la tashado. celcelisahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu ku soo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadii hore yuu badan yahay ay oran kadhaa Titore Cabdicasiis? horta tirkoob guud oo magaalada dhana kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno cusbitaal guud ee Boosaaso ayaan joogaa iyo goob kliniga. marka intaan la kulanay sanadkii hore 23 ilaa hadda oo ah 24 isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 70. marka meelo kala duwanna ku dhacaya, una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya. kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu ugu waramayay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. qaar ka mid ah bahda waxbarashada iyo dhallinyarada aqoon-yahanka Soomaalida ee wax ku bartay dalkan Mareykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay ee ahaa inuu ka cafin doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardayda horey amaahda waxbarasho u qaadatay. haddaba aqoon-yahanka Soomaalida ee deymaha lagu leeyahay maxay tallaabadan uga dhigan tahay? warbixintan ayaana ku eegayaa. madaxweyne Joe Biden ayaa horey u waday qorshe kan ka ballaaran oo doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin qof, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaali fara badan oo doonaysa inay ka faa'iidaystaan, inkastoo maxkamadda sare ee Mareykanka is-hortaag ku samaysay.
tallaabadan cusub ee Biden uu qaaday maxay uga dhigan tahay dhalinyarada iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee deymaha waxbarasho looga leeyahay dalkan Maraykanka? sidee ayay isugu soo dhoweeyeen? waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo bare ka ah jaamacadda OSU ee gobolka Ohio oo arrimahaasi ka hadlaya. dadka Soomaaliyeed Somali Americanska loo yaqaano ee waddankan ku nool Maraykanka jaamacadaha Maraykanka waa ku bartay deymaha badan lagu lahaa sida shacab weynaha Maraykanka looga cafiyay ugu farxeen deymaha iyagana u soo dhaweeyeen oo dadka bay kamid yihiin runtii arrin loo riyaaqay oo bahda waxbarashada iyo aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed shabaabka dhalinyarada wax ku bartay jaamacadaha Maraykanka ee kala duwan runtii waxay ahayd inay aada ugu riyaaqeen una soo dhaweeyeen runtii ma garanaysaa maaragtay noloshooda wax weyn ka bedeli doonto. matalan haddaan kasaale kaa soo qaado dadkan medicinka bartoo kaleento waxay xambaarsan yihiin deymo aada iyo aada u fara badan oo runtii aada moodo inay xataa lifetimekooda bixinayaan aad iyo aada u fara badan. waxay oga dhigan tahay fursad dhaqaale oo soo korodhayo qofkii ma garanaysa cunihiisii iyo qoontiisii laga qaaday ayay u dhigan tahay oo qofkii maaragtay uu helaya waxa loo yaqaana financial freedom helaya at least oo naftiisii iyo dadkiisii iyo wixii dowladdu ama u celinaya meel kale ku hayn karo. waxaa jira dhalinyaro badan oo la harjadaya sidii ay isaga bixin lahaayeen deymaha ay qabaan oo culays dhaqaale ku haya. haddaba sidee ayay uga faa'iidaysan karaan qorshahan cusub ee deyn cafiska, shuruudaha ku xeeran iyo meelihii ay u mari lahaayeen ayaan weydiiyey Ismaaciil Jirde oo ka mid ah bahda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkan Maraykanka, sidoo kalena ka mid ahaa dad horay amaahda waxbarasho looga cafiyey. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay Maraykanka sida aan la soconno waxay qaataan deyman. marka deymanka waxay u badan tahay haddaan qiyaaso inta ugu badan 80% ardayda wax dhigi karaa oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deymaa lagu leeyahay. marka inta aan cafinin ka hor dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yidhahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladda ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaasa laga dhex xushaa marka hore. horta muhiim waxaa ah qof kastoo Soomaali ah oo arday ah oo deyman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaano waxaa la yidhahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaanaa amase kuwa ku xiran qofka dakhligiisa amase lacagta soo gasho. marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arrintaas in maxay ahayd ay u tahay meelaha la iskaga cafiyo inay tahay dadka isla dar barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya. waxaa jirta laba qaybood oo sidta ugu muhiimsan. mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dawliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u samaynin. dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. marka aniga noocaasa kuwaasaan kamid ahay. siyaabo kaloo jirta oo haddii 25 sano ay bixiyaan deymaha oo ay si kastaba meel kastay ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto. laakiinse shuruudo badanaa jirta oo laga soo baxo. aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhaayay. arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programkan dhan la bilaabay loan forgiveness kala dhaco. laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabuu ka badbedelaa ama hore usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dibay u dhigaan. marka aniga midda aan nasiib waxaa isugu kaysoo aaday anigii ka warhaayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas laigaga cafiyey. Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato? horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay. intaan in ka badan ayaa jirtay in la cafiye ay ahayd oo 2 milyan oo qofood oo saamayn lahayd. hadda tan la sheegay oo lagu dhawaaqay bishan lagu dhawaaqay waa 277,000 waaye. marka aaday uga yar tahay tir ahaan. dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan aan rajaynayaa. midda koowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta. qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho SAVE qof kastoo arday way garan karaa
wuxuuna ka mid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation kusoo bisid ayaa isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo, shirkado badan oo u maamulo. shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga ku assign garaynayaan amase ayaga kuu dooraayo. marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhahaa, amase lacagta qaybka loo bixinaayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. macnaha dowladda ayaa barnaamijyadaas u samaysay. mar kastoo lacag la cafinayana dadkaas ee laga dhex xushaa, meel banaanka eh kama imaan doonaan. marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay haddii ereygaas xasuusta income driven repayment plan, dadka qof kastoo Soomaali ah oo bixinaya canshuur la bixinaya deyn waa inuu barnaamijyadaas mid kamid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. tan haddaad ka heshid nasiibaad leedahay, emailkaaday kuugu soo dhici doontaa. haddii aadan tan kamid ahayne waxaa qasab noqon doonto ay u badnaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhex xusho amase sanadkan amase sanadada soo socota. aqoon-yahano badan oo Soomaali ah kuwaas oo wax ku bartay dalkan Maraykanka laguna leeyahay deymaha waxbarasho ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waxay u noqonaysaa iyadiilo ay dareemayaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale ee uu ku hayo bixinta qarashaadka waxbarasho ee hore ay u deensadeen. haddana dhegaystayaal haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, kooxda Real Madrid ayaa xalay ka argudatay kooxda Manchester City oo sanadkii lasoo dhaafay wacdara ku dhigtay oo ay markaasi isku arkeen tartanka UEFA Champions League semifinaalkiisa. Real Madrid ayaana xalay ciyaar 120 daqiiqo socotay oo lagu kala bixi waayey ugu dambeyntii Real ku garaacday kooxda difaacanaysa horyaalka Yurub, isla markaana ahayd kooxda sida weyn loogu saadaalinayay ee Manchester City. Real ayaa finaalka waxay isku wajihi doonaan kooxda Bayern Munich oo kasoo adkaatay kooxda Arsenal. sidoo kale semifinaalka waxaa jooga kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris oo iyagana habeen hore soo baxay. UEFA Champions League ayaana hadda soo gaaray wareega semifinaalka.